qaybta afraad ee taxanaana waxay ku bilaabanaysaa halkii joogtay qaybtii saddexaad waxayna ahayd markii dalxiiska ay ku jireen oo waqti fiican ay wada qaadanayeen oo iska baashaalayeen waxayna markaana wada cunayeen cuntadii iyo markaana soo wada dabteen cuntada ayna ku wada raaxaysanayeen oo iska wada baashaalayeen daawad intaan muuqaalka hore u sii galeen cajuurta iska bixi oo la galeen muuqaalka hadii dalkana ku cusubtaana ka mid noqon saaxiibadan ugu xiran inta ka dib wax markaa la gaaray habeenkii markii la gaaray boqoftoo meeshan ayaa la afduubtay waxaana markaan afduubtay saaxiibkeedii keenta ay markaana gudaha u soo galeen manaysan doonin in markaan xiriirkoodii la ogaado waxaana bilaabeen keentii dhexdeed oo mugdigeedina markaan waqti fiican ku wada qaataan iyagoo halkaas shumis fiican inta ku wada qaatay laakiin halka Wunga iyo saaxiibtiisa bay halkaas wada joogeen laakiin gabadhii Suweed way ka dhaqaajisay laakiin gabadhii Suweed wax markaan arkaysa labadii keenta ku dhex jirtay oo markaan keenta dhexdeed waqti ku wada qaadanaya markii midaan aragtay in aad u la yaabtay maxaa yeelay marka hore ma aysan ogeyn labadooda in xiriir ka dhaxeeyo waxaana bilaabeen in markaan soo dhuuntaan oo gacanta markaan isqabsadaan iyagoo markaas aan u maleelin inaan la arkaynin waxaana bilowday gabadhii in markaan halkaas ka dhaqaajiso wiilkiina halkaas ayuu ugu haray inta ka dibna wiilkii meeshii mugdeed waqti kula qaadanaya wax markaan u imaanaya gabadhii Suweed oo markaan kaligeed meel taagan wixii ay aragteen aad u la yaaban waxaan markaan ku yiri hay kaliga maxaad meeshaan ka haysaa dhaladan hoo qabso waxaad fiirisaa xidigaha dhalada ay qabsatay waxaana bilaabeen markaan xidigaha fiiriso waxaana ku yiri xidigaas xitaa adiga ka qurux badan waxaana bilaabeen inuu gabadhii u suuroodo isagoo markaas doonayay qoftan xitaa inuu ku daro laakiin isla markiiba waxa halkaas u imaanaya wiilkii Wungi ahaa waxaana ku yiri hay maxaa kugu dhacay macaalisan tahay ninkan wuxuu ku sheegayay waxaana bilaabay wiilkii Wunga saaxiibtiisa inuu halkaas ka wado laakiin isla markiiba waxa gacanta qabsanay wiilkii kale waxaana ku yiri maxaa dhacay aniga xageed iga tagaysaa sida inay tahay saaxiibtiisa idan waxay ku tiri markii horeba aniga dhaladan ayaan ka qaaday waana qabsatay hadda dhaladaada wayna ka dhaqaajisay laakiin asigeena waxa ku yiri aniga waan ku jeclaa wiligeena waan ku jeclaan jiray laakiin jecelkii ma aanan ku sheeganin hadda ka hor laakiin idana waxay ku tiri laakiin aniga kuma jecli waanaad midaasi ogaataa wayna ka dhaqaajeen halkaas iyo wiilkii halkaas ugu tagay inta ka dibna wax markaan aagna gacan yarihii Wungi iyo saaxiibtiisa keenta dhexdeed ay markaan joogeen halkaas ayna ku wada sheekeysanayeen toosh ayna wateen iyo markaan keenta dhex qulqulayay laakiin gacan yarihii saaxiibtiisa waxay ku tiri aniga inta ka badan ma waxaan ka rabaa inaad i qaado isagana waxay ku yiraahday waayahay wana soo fuusha dushiisa ee markaan fuushay waxaana bilaab inuu qaado walakin waa daayir dhalay faa'iido ma lahan waa uu soo qaaday isagoo markaan la soo dhaqaajiyay ugu dambeeyay waxay markaan imaanayaan meel si fiican looga arkayay dhammaan xidigaha ugu dambeeyay waxa markaan keenaya meel wada ah wadada ay markaan ku dajiyay waxaana ku yiri hay markaan waa socon kartaa waa inaad socotaa wayna wada sheekaysteen wayna soo dhaqaajiyeen iyagoo markaan iska wada sheekaysanayay beetina dalxiiskii waa uu soo gabagaboobay wayna soo dhaqaajiyeen iyagoo markaan dib ugu soo laabtay magaalada markay magaalada dib ugu soo laabteen wiilkii Wunga waxa markaan imaanaya kambanigiisa iyo xafiiskiisii markuu yimid ba shaqaaley wax markaan u sheegayaan cabashada markay u sheegeen ba waa u dhaqaajinaya isagoo markaan cabashadii u geynaya aabihiisa inta ka dibna waxa markaan aragnaa eedadiisa oo markaan ay soo weerareen qoladana waxay doonayeen inay markaan burburiyaan dhammaan guryahooda iyo beerahooda maxaa yeelay mashruuc ay soo qaateen waxayna ka socdeen kambaniga wiilkii Wungi waxaana soo amray aabihiisa laakiin iyagana way diideen in guryahoodii la dumiyo laakiin iyagana waxay u sheegeen in amarkan ay ka wataan dawladda waana qasab inay halkan la wareegaan laakiin iyagana waxay u sheegeen midaas inaysan macquul ahayn maxaa yeelay dhammaan dhulkan iyaga ayaa iska leh dhaxalkooda ayuuna ahaa mana laga yaabay cidna inay siiyaan laakiin shaqaaley waxay ku madax adeegeen in markaan operationskeedu ay sameeyaan oo ay qasabteen in halkan dumiyaan laakiin waxa markaan hor istaagaysa gabadhii Suweed waxayna ku tiri nafteeda ayaan ku weyn karaa waxaana bilowday baaldooska inay markaan hor istaagto kuli tiraaho waa inaad imarsiisaa laakiin isla markiiba shaqaaley midana way joojiyeen halkaasna way ka dhaqaajiyeen waxayna ku yiraahdeen waan soo laaban doonaa markaan soo laaban doonana waa inaad halkaan ka dhaqaajisaan ugu dambeeyay halkaas waa ay ka tageen ugu dambeeyay gabadhii Suweed way soo baxday waxay markaan u imaanaysaa saaxiibkeedii waxay markaan ku tiri saaxiibkeedii Wunga dad ayaa isku dayay inay markaan dumiyaan dhammaan guryaheennii xitaa beerteennii waxay rabaan inay dumiyaan midaas macquul ma aha isagana waxa markaan ku yiri may dhib malahan aniga ayaa garabkaaga taagan maalinta xigtana gabadhii Suweed saaxiibkeedii Wunga way soo raaceen iyagoo markaan yimid banaanka waxay markaan ku tiri kulli ma garanayo qofka doonay inuu burburiyo dhammaan beerteena iyo gurigeena uu la wareego laakiin ilaa hadda midaas ma aanan fahmin iyo sababta ku qasbaysa laakiin saaxiibkeedii wuxuu ku yiri may dhib malahan midaas waan xalin doonaa inta kadibna waxa markaan milkiilihina waxa markaan loo sheegayaa qorshihii markaan lagu burburin lahaa beertaas iyo guryahaas inaysan macquul noqon karin maxaa yeelay dadka iska lahaa ayaa taagan waxayna diyaar u yihiin naftooda inay u huraan markuu midaas maqlay aad u murgay inta kadibna waxaan aragnaa gabadhii Suweed
saaxiibkeedii Wongi iyagoo markaana jooga gurigooda halkaasna boonbal ay ku sameynayeen waqti fiicanna way ku wada qaadanayeen iyagoo halkaas ku sheekaysanayay gabadhii Su'aad waxay u sheegaysaa ilaa yaraanteeda inay jecleed inay sameyso boonbalooyinka ilaa haddana ay midaas jeceshahay riyadeedana ay tahay inay soo saarto farshaxan qurux badan laakiin isagana waxa uu ku yiri xabiibti ani waxaan diyaar u ahay inaan adiga xitaa ku soo saaro oo aan ku sawiro adigoo qurux badan maxaa yeelay adiga ayaa aad u qurux badan midaasna waan ku qasbanahay idina waxay ku tiri aniga sidoo kale adi meeshaan wixii suuro lahay oo dhan ayaa la isugu dhameeyay kaliya afka kama sheegi kari intaa kadibna waxaan aragnaa ninkii milkiilaha xaaskiisa waxayna ahayd eedadii Wongi alaab ayna saaranaysay baabuur waxaana bilaabay inuu markaana ku yiraaho xagee wax marayaan iyaga waran ninkii taajirka ahaa iyaga waran ninkii milkiilaha kambaniga ahaa hantidiisa xagee maraysa oo waxaan ogaynaa naagtaan oo inay khiyaanooley tahay oo inuu shaqayso dad kale meeshaan waa la isku wada maqan yahay qof kastana qof ayuu ku maqan yahay waan arkaynaa dhamaadka xaalka sida uu noqdo waxaan markaan u sheegaysaa xaalka sida uu yahay iyo wax kasta meesha ay marayaan isagana wuxuu ku yiri hawshaada waanaad sii wada oo aadan ka gaabinin oo una ka dhaqaajinaya halkaasi intaa kadibna wax markaan aragnaa kambanigii qof kastana wax markaan soo xaadiraya shaqadiisa gacan yariina dhammaan shaqaalihii wax markaan ka soo qaadaya riboodkii ay hayeen isla markii wax halkaas imaanaysa qoftii saaxiibtiisa waxayna ku tiri ay halkaan saaxiibkeygii ma jooga markii midaas maqaleenba dhammaan dadkii aad bay ula yaabeen wayna soo carartay waxayna ku tiri sheekada miyaad bilowday soo mogod anigana adiga kaliya ku leeyahay dhammaan dadkii midaas ay ogaadeen wayna soo wada dhaqaajiyeen iyagoo markaan u wada yimid wiilkii Wongi ay gabadhii Suusu ahayd waxay markaan ku tiri gabadhii idin kalkaan ayaad iska fidhisaan laakiin gacan yariina aniga ay qiyaamaya soo midaas qalad ma ahan markii midaan ogaadeen biigan aad bay ula yaabeen waxaana bilaabay gacan yariina markay qoftiisa sabto isagoo markaas ku yiri may waxa sameyn jiraan niidi qar u sheeg degdegana dhaaf fudeedka waa laga qurux badan yahay laakiin dhagta ay qabat waxaan ku tiri khiyaanoolow ayaa tahay wasaqna waa tahay laakiin gabadhii Suusu diya markaan dhexdhexaadisay waxaan markaan ku tiri waxa laga yaabaa waxaas oo dhan inuu sameeynaa jecel oo adiga ku jecel yahay ugu dambeyntii maalintii xigtay kambaniga waxa markaan qabanaya shirka ayaa markaan soo wada yimid laakiin milkiilayaashaas waa ka maqnaa waxaan hogaaminayay wiilkii Wongi ah dhammaan shaqaaleyna waxay bilaabeen markaan u wada saacbiyaan maadaama howl balaaran oo markaan qabtay oo noo fuliyay mashruucyo badan shirkii markii uu soo dhamaaday baa uu soo dhaqaajiyay isagoo markaan u yimid aabihiisa waxa markaan u sheegay waxa la meeshii ay marayaan laakiin aabihiisa wuxuu ku yiri ayaantaan shaqadaada way toosan tahay laakiin waana sidaan ku sii wada beetina maalintii xigtay waxa markaan isugu imaanaya shir kale waxaana ka soo wada qayb galaya dhammaan dadkii shir ku lahaa kambaniga waxaana markaan la rabaa in la doorto madaxweynaha cusub ee kambaniga inkastoo maamulihii kambaniga ay markaan dhammaan dadka mooshin ka keeneen iyagoo markaas sheegay inuusan u qalmin in markaan uu xilka sii hayo waxayna bilaabeen cadeemo badan inay markaan ka keenaan iyagoo markaan cod iyo muuqaalba ka keenay midaasi awgeed waxa markaan la go'aansaday in markaan xilka loo dhiibo wiilkii Wongi ahaa sidoo kale waxa halkaas laga cadeeyay gabadhii Su'aad aabaheeda gabadhii Su'aad wax markaan sawirkeeda tusaysa aabaheeda waxayna ku tiri aaba soo qofkaan adiga ma ahan waad inkirtay waxaad naga dhigtay sida inaad adiga dhalin oo kale laakiin maanta garabkaaga ayaan taaganahay in badan waan ku raadiyay laakiin ugu dambeyntii gacanta ayaan kugu dhigay waxaan u maleynayaa had inaad diyaar u ahayn inaad idhaahdo gabadhayda aabaheedina waxa uu bilaabay inuu markaan ooyo oo markaan aad u liyaabo gabadhiisa qaabkay u kortay waxayna meedal la noqotay mid la yaab leh oo dabeetina maamulka kambaniga waxa markaan loo magacaabay wiilkii Wongi ahaa dhammaan shaqaaleyna midaas aad u soo dhaweeyeen markii kambaniga maadeen basacbis ay ku soo dhaweeyeen iyagoo markaas ugu hambaliyay jagada loo magacaabay sidoo kale gabadhii Su'aadna kambaniga ay wax ka yeelatay maadaama aabaheed uu shir ku lahaa kambaniga waxaana bilaabay wiilkii Wongi ahaa inuu jilibku dhulka dhigto oo markaana guur official u soo bandhigto gabadhii Su'aad waxaana ku yiri diyaar mootay inaan ku guursado maadaama markaan ogaaday wax aad tahay wayna ka aqbalaysaa guurkii waxaana maanta halkan ku soo gabagabeynaa dhammaan taxanaheennii maanta muuqaalkeen intaan ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan mid ka xisaab badan kulmi doono sida si nabadeeno